أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaan marka hore salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Marka labaad waxaan salaamayaa si gooniya oo u mahadcelinayaa siday ii aamineen sidaan hogaamiye ugu ahaa uguna ahay wali kooxda tala ku nool. aad iyo aad baad mahadsantihiin. waxaan kaloo sida kale salaamayaa taageerayaasha tala ku nool kooxda tala ku nool iyo mabaadi'daagu. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay timid halkan maanta meesha ay joogto. waxaan rabaa inaan la wadaago arrimo degdeg oo soo kordhay. marka ugu horeysa waxaan ka soo baxay shir khadka telefoonka ee aan la galay dhammaan xubnaha tala ku nool. runtii wadanka dhinaciisa kala duwan caalamka dhinaciisa kala duwan ay joogaan shiraan galnay. shirkaasina wuxuu ku saabnaa sidaan u wajihi lahayn xaaladda na soo food saartay. waxaan rabaa inaan idiin sheego by now waqtiga xaadirka oo la joogo waxaan maleynayaa inaad taqaanaan qofka aan ahay Sufyaan Sheekh Axmed loogu magac daray Farxaasle la yiri ninka caalanka ama raba astaanta inuu bedelo la yiri ninka oo waxyaabo kale oo fara badan. waxaan rabaa marka inaan la wadaago halkan maanta ku soo fadhiistay in maalintii aan soo bilownay arrinta ah in aan bedelno caalanka iyo astaanta qaranka oo u ololeyno oo ceebaha iyo ciladaha uu leeyahay banaanka aan keeno. 2 bilood markii la joogay oo la arkay arrintaani in ay san ahayn arrin lagu hor imaan karo, arrin xaqiiqa, arrin run ah, arrin qofna uusan diidi karin. dadkii samaystay iyo dadkii u adeegayay way la soo xiriireen. waxaa la yiri Sufyaanow waxaan rabnaa inaad qaadatid lacag $2 milyan $2 million qaado ams programkaana kaar arrintan caalanka iyo waxaan iyo kaar dhigo ilmaha leedahay reeraa leedahay Farxaas la tahay ilmaha iska biilo guriga iska iibso raaxayso nolosha kaar waxaan faraha ka qaad wadi because qadiyada tala ku nool iyo qadiyadaydu ma aha mid la iibsan karo wadi markaan diiday muddo kadib waxaa dhacday in xubno ka tirsan dawladda ma aqaan dawladda oo dhan inay isla ogeyd iyo qaar ka tirsan inay ahaayeen rag baa soo wacay telefoonka ugu soo wacay waxaan ahay dawladdan ka tirsanahay waxaan ku siinaynaa xubin agaasimi xubin aan ku siinaynaa markii wasiirkii hore arrimaha dibadda uu joogay xilka waxaa la yiri waxaan ku siinaynaa xubin baan ku siinaynaa agaasimi baan ku siinaynaa arrinta faraha ka qaad. waxaan ku iri $2 million aan diiday agaasimi $2 million na waa fahmi kartaa inta isu jiraan difference u dhaxeeyo. arrintaasi markay halkaas tagtay waxay go'aansadeen marka in dadkaas ay weeraraan yihiin marka ugu horeysa aan idin sharxo dadkaas. waxaa fangareynaysaa hay-adahan Talyaaniga uu leeyahay ayaa lacagta bixinaysa. waxay lacagta siinaysaa hay-ado kale oo jira ay lacagta siinaysaa. hay-adahaas markay lacagta siisana weerarku halkaas ka imaanaya. hadda maantay waxa soo cusboonaado emergency arrintan aan soo galay in baraha bulshada la soo dhigay Sufyaan Sheekh Axmed waa nin dilaa ilaa iyo waxa la tirinayo ma 7 mise waa 9 qofood soo dilaan arrintaas daraadeed aan soo fadhiisto runtii waa wax lagu qoslo balse waxaan rabaa waxay leedahay runtii taxadirkeeda inaan qaato oo ah taxadirkeeda markaan shir galnay waxaan go'aansanay inaan live kan soo galo bulshada Soomaaliyeed inaan la wadaago arrintan. waxaan rabaa videogan inta aad ku jirtid waa muhiim waa wax loo wada digniin loo wado ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaad share gareysaan oo ku share gareysaan dhammaan meelaha aad ku share gari kartaan. waan idinkaga mahadcelinayaa runtii. waa arrin xasaasiya waa arrin muhiima waa arrin la rabo in lagu dhaawaco qaranka Soomaaliyeed ama loo diido qaranka Soomaaliyeed oo hor u socdo. maanta marka arrintaas soo gashay arrintaas daraadeed marka waxaan rabaa inaan idin sheego taariikhdu waxay ahayd wixii aan soo marnay oo qarinoona bulshada u sheegin iyo qaybo kale oo aniga noloshayda kamid ah saad u fahantaan. okay markii agaasimo qaada la yiri wasaaradda arrimaha dibadda iska diiday waxaa la bilaabay marka weerar in lagu soo qaado. weerarkaas oo ah in la iga suucay la yiraahdo markii ugu horeysa waxa weerarkii ugu horeeyay wuxuu ahaa in lagu soo weeraray in aan nin western ku soo adeegsaday la yiraahdo tayga uu wato iyo suudka uu wato iyo balfiir waa gaal waa shaydaan waa sidan in sidaas lagu dacayday. arrintii iyada waa shaqay weysay markii halka shaqay weysay haddana dhinaca kale la jeedo waxa la yiri ninku waa al-shabaab waa takfiir
ilaa sawirkayga inta la qaaday sawir al-shabaab qoryo wata la dhexgeliy ayadana waa shaqay weyse markii intaas ay sameeyeen waxaa timid marka in la weeraro lagu soo weeraro arrin khayri ah oo islaamka u fiican oo caadooyinka islaamka quruqaadooda ah aniga iyo xaasaskayga guurka aan u soo bandhiga bulshada si aan tusaale ugu noqdo in lagu weeraro asaga oo la laftigiisa cid laba looga dhigo oo lagu caayo oo diinta loogu gafo oo ogtihiin dad badan diinta loogu gafay ayadiina waa socon weyse waxaa soo gala marka in personal attack marka waxaa la yidhi marka ninkan mar haddii aanan dili karin dhambaalka waa inaan dilnaa dhambaal wadaha if you cannot kill the message kill the messenger haddaanan dhambaal ka dili karin dhambaal wadaha dil macnaha doodii tala ku nool ahayd calanka in la bedelo oo la yidhi 2 milyan ku qaaday iska daa oon diidnay oo la yidhi agaasima ku qaaday iska daa aan diidnay doodiina aan cidna celi karin shacabkii soomaaliyeedna ay fahmeen oo qaateen waxaa ka dhalatay in ay timaado in shakhsi binaadam soo horsaay kari shacabkii soomaaliyeed inay qaateen haddii shacabkii soomaaliyeed marka qaateen dadkaasi waxa meesha dhigta markii hore dadka qortay constitutionka ama dastuurka gaalada ee meesha yaal dadka qortay heesta qaranka iyo astaanta qaranka in shaydaan lagu caabudo shaydaankii meeshuu joogaa ma bixin weli shaydaankii weli meeshu joogaa ma bixin waxaan rabaa qof kasta oo islaama oo dhageysanaya inuu sii sharkireeyo oo beejajka sii geliyo si shacabka Soomaaliyeed u dhageysto waa arrin runtii muhiima waa arrin khatarteeda leh waa arrin aan ugu talagalay in uga jawaabo su'aalo badan oo banaanka yaal iyo waxyaabaha maanta la soo dhigo social media oo ah Sufyaan 9 qof oo soo dil arrintii markii ay waxba ka qaban waayeen markay arkeen in la ekaatee dhambaalkan ah calanka in la bedelo iyo astaanta qaranka in la bedelo haybta korka in la baabi'iyo in taariikhdii dib loo qoro oo la soo saaro waxyaabo badan oo qarsoon oo aysan rabin in banaanka la keeno waxay go'aan ku gaareen in aniga la soo weeraro oo la yiraahdo haddaanan dili karin dhambaalka uu wado Sufyaan Sheekh Axmed iyo tala ku nool kooxdaasi haddaanan dili karin asaga aan dilo marka waxaad qiyaasi kartaan marka khatarta ay leedahay in social media la soo dhigo oo ay soo dhigto group ay hogaaminayso BBC-da waxay sameeyeen waxay contract la galeen wariyaal ka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysa wariyaalka qaybta BBC-da Soomaaliga u shaqeysana waxay heshiis la sii galeen wariyaal kaleeto oo Soomaaliya oo ku faafsan caalamka dhinaciisa dadaa lacag la siiyey waxaana lacagta loo siiyey in aniga magaca la iga dilo haddaanba aniga lay dilinba inaan magaca la iga dilo waxay sameeyeen marka waxaa lacagta fangaraynaya hay-adda la yiraahdo saxaafadda caalamka ama ay iskugu tagaan journalism iskugu tagaan waxaa lacagta fanka sii bixinaya hay-ad Talyaaniga soo Talyaaniga lacagtii bixiyey warar kale waxay leeyihiin xataa wad Mareykanka ku jira oo hore anigu aan xabsi ugu jiray 4 sano ka badan marka waxa la yiri arinta iyada ah ragaasa wata okay banaanka la soo dhiga maanta waxa la yiri ninkii Sufyaan ahaa ninkii aqoon-yahankii ninkii professorka ahaa ninkii afar xaaslaha ahaa 9 qof uu ka takhalus 1991 dadka aniga yaqaana aan rajili baana jacadaadan ku dhashay laakiin jilib aan ku soo koray jilib 1991 ka soo tagay dagaalku markii Soomaali uu ka qarxay oo Siyaad Barre soo baxay ayaan soo galay Muqdisho nin tababar ciidan lama ahayn nin baalkii hub qaadama ay weligiis jabhad kama soo shaqaynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo probably markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira intaasan jira maanta marka waxa la taagan yahay ninkii 17 sano jiray 1991kii 9 qof uu soo dilay asaa dilay hada waa nimanka la sheegayana nimanna de ma aqaan waxay yihiin laakiin waa fahmi kartaa macnaha meesha ku jira marka waxaa fangaraynaya BBC-da oo lacag ka helaysa hay-ado Talyaani intaan hubo Talyaani ujeedadu marka waxay tahay waxaa la yiri maamaha baa jirta English oo la yiraahdo if you cannot kill the message kill the messenger haddaadan dhambaalka dili karin dhambaal wadaha dil maadaama la dili waayey
oo ay dood ka keeni waayeen maadaama ay difaaci waayeen maadaama wax dooda laga keeni waayey in calanka Soomaaliya uu yahay calan lagu caabudo shaydaan maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uusan samaynin cawaale maadaama ay difaaci waayeen in calanka Soomaaliya uu yahay calan 1989 Soomaaliya yaalay intaas markay difaaci waayeen oo ay caddaha maanta banaanka soo dhigna astaanta qaranka ee Soomaaliya calaamad Kristaaniga ku jirto tanna ay tahay calaamad shaydaan dadkiina ay qaateen go'aanka la qaatay wuxuu yahay marka Sufyaan la burburiyo marka la raskal Sufyaan aan dilno Sufyaan marka aan ka takhalusino xageen ka marnaa well muqdisho ma joogo oo qorin loo soo dhiimaayo hadhow inta igu dilaan dhiimaayo al-shabaab aadili because usually say u dhacdo saas waa muqdisho marka joogtid iyo Soomaaliya hay'adaha qof soo siinaysa hay'adahaas qalaada lacag bixinaayo qofkaas la soo cunaa lagu la soo cunaa hadhow marka dhimatana waxa leeyahay waa al-shabaab aad shinkaas we all know that taariikhda soo wadagna kulligeen hadan Soomaalina marka wadan waxaan joogaa xoogaa arintaas aysan suurtagal ka ahayn waxa la yiri marka maadaama ay saas tahay asaga sumcadiisa hal dilo dadkaas macnaha dad dhintay hadda ma aqaano runtii xaqiiqdu waxay tahay hal la soo qaato waxa la yiri ayagana dusha loo saaro okay marka intaas la yiri marka dusha loo saar la yiri ujeedada laga rabo waxay tahay oo ugu muhiimsan kow in aniga dhibaato la geysto shakhsiyan naftayda la damage garay macnaha la dilo la dhaawaco wax lagu sameeyo haddii intaas la waayo oo intaas ay suurtagali weyso in markaas kadib sumcadeeda la dhaawaco oo shacabka Soomaaliyeed ee fahmay waaqiciga jira ay cabsadaan ila markastoo qof islaami uu soo baxo wadankiisa inuu difaacdo oo soo baxo diintiisa inuu difaacdo waxa lagu soo diraa dadkii kaleeto dadkii la cabsi galiya marka cabsigeliskii way marka in la cabsi galiyo la yiraahdo aamus shacabka lagu diro dadkaas dabcan ka dhintay lagu soo jeediyo la yiraahdo ninkan waa nin noocaasa fangor buu qabaa wadadu soo dilay waxa soo dhan ila caydi kala dhawaa laga soo gudbay maalin waxay al-shabaab aan ahay oo niman argagixisa dhexda la igu soo sawiray oo hub wata maalina waxay ahayd in la yiraahdo waa gaalo ninkan taay waxba wata intii baa soo guulisay way maanta marka waxay taagan tahay in BBC da la soo siiyo contract wariyaal BBC da ka socda ay wadaan programkan in Sufyaan Sheekh Ahmed lagu eedeeyo sumcada looga dilo iyo sharafta iyo karaamada looga dilo in uu dilay 9 qofood 1991 Soomaaliya iskaga soo cararay qurbaha aaday waxa kale soo socda qaar kalena tan laftirkeeda iska dhaafay qaar kalena waa soo socdaan arrimo la midna waa imaanaya waxaan ka codsanayaa shakhsi kasta oo islaam oo Soomaaliya oo dhageysanaya si page faafi arrintan page-ka kala sii gali si dadku u daawado oo ay u gaarto dadka waxaan difaacanayno waa diinta islaamka waxaan difaacanayno waa wadankeeni qofkii u istaaga diinta islaamka oo yiraahdo dastuurkan ma rabee midka islaamka aan rabaa waxa way waa la soo weeraray weerarkuna maanta Sufyaan ku socda haddaan marka maanta garab idinka waayo ogow mid kastoo diinta u istaaga halkaas la dhiganaya gaala soo weeraraysa hay'adaha soo weeraraya hay'adahaasna waa ku tagaan maalinba mid la baxaya ilaa wadankiina marka ugu dambaysa wixii raba laga sameeyo so waxaad samaysaan intiina ku jirta hadda please share this video dadka kale share kare aan wada marka waxaan rabaa inaan idin sheego qiso kaleeto oo aniga shakhsiyan ugu saabsan taariikhda ku saabsan aniga saad ogtihiin baa horaan ku sheegay jaamacado badan oo Mareykan ku jiraan soo dhigtay kuwa banaankan waa soo dhigtay Mareykanku waxay ku bixiyaan lacag sanadkii $230,000 waxbarashada lagu bixinaa waxay ugu tala galeen in ay iga dhigtaan their man ninkii macnaha ayaga shaqadooda u qabanay markaan joogo Spain Madrid waxa yimid niman u shaqeeya dawladda Mareykanka oo ka tirsan dawladda u shaqeysa piano waxaan rabnaa inaan anaga nala shaqeyso oo u sheegay waxaan ku yiri nimayow ma xumayna nala shaqeeyo laakiin shaqadaan idin qabanayo saahi waxa weeyaan in aad qabato shaqo ama aad u shaqeyso arrin aad runtii samayso in aad la dagaalanto argagixisada ani waxaan ku yiri nimayow dhageysta argagixiso la dagaalan iyo macnaha ma rabo qaar ayaa jira aan rabin meeshaan inaan ka iraado oo xaqiiqa waxaan ma rabo argagixisada dagaali waxa isku ma jiraani shaqo kale ii dirsada waxa la yiraahdaa adiga duqal ma taali 230,000 sanad kasta kugu baxdo waxbarashada hadda oo Madrid joogtana 230,000 waxaan sii saarna 100,000 oo kale deganaanshaha iyo guriga aan ku jijino meeshaan ku jijinaa ma waxaan u maleysaa leeyahay waxbarashadaas ilmaheena xataa ma helaan ninkii ila fadhi wuxuu yiri aniga wiilkayga xataa ma helin waxbarashada yeeshay how do you think in just
tell you go ina iska baxaysido faraha ka qaadano shaqada ay qabsanaysa mise waxaan ku barnaa rabtaa wadankaaga inaa u laabto annaga nuu soo weerartid arrinta si kasta ahaatee waa diid waxaa u dambeeyey in la xiro dambiye la ii sameeyo xabsi laygu tuuro xabsiga lay geliyey waxaa la jiray incommunicado shaqsi bini'aadana oo is arkaysaani ma jiro adiga iyo ilaaha bas muddan halkaas ku jiray jirdila laygu sameeyey waa lay soo garaacay farahayga qaaraa jaban qaarkii waxaa laga yaabaa markaan saas iraahdo aragtaan fartaan iyo farahaan iyo feeraha iyo waxaasna waa jaban yihiin gudaha xabsiga dilka dhexdiisa laygu geystay oo ahayd inaan laygu qasbo in aan u shaqeeyo ayaga anna waa diid 17 qof aan ku galnay meeshaas maanta laba ka nool aniga iyo nin yamaniya ka nool soo micnaha taas aad ka fahmaysaa wuxuu yahay ma ihi shakhsi lagu cabsiinayo dhimasho because dhimasho waa soo arkay midabadeeda waana dhiman laakiin midabkeedaan soo arkay ma ihi qof lagu cabsiinayo markii dambena waxaan heshiis ku gaarnay ilaahayaa ii sahla taas hay-ad la yidhahdo care oo maraykan ka jirto u dooda xuquuqda islaamka ayaa ii dooday باذن الله هيدي مركي برنامج waxa lagu heshiyay in ninkan Soomaaliya lagu celiyo 10 sano aan waxba qorin waxna akhrin siyaasadna aan ka hadlin 10 sano inaan waxna qorin waxna akhrin siyaasadna aan ka hadlin 10 ka sano waxay ugu dhamaaleed 2022 waxay kale go'aansadeen marka Soomaaliya ay keenay maadaama ay ka fududahay in Mareykan lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo in Soomaaliya lagu dilo ay u fududahay ayaga in Soomaaliya lagu dilo maalinta la keenay Soomaaliya Muqdisho anigoo qoorta silsilada igu jiraan gacmaha dhan kulligay wada bir ah waxa taagnaa ragaala oo Mareykan oo cadaan ah taagnaa meesha waxa la taagnaa niman askar Soomaaliya iyo gaafo nin la yiraahdo oo immigration ka haystay arintaasi waxa sidoo kale familkayga ayaa wuxuu sheegay inaan soo socdo la rabana in la dilo because qadada waa ogeyn lawyer-kayga ay sheegay waxa meesha soo galay airport-ka dhexdiisa Allah u naxariistay Nabadon Axmed Diiriye oo adeerkay iyo ehelkay walaalkay ehelkay kaleeto waa la isku qabsaday ninka anaga wadana iyo anaga wadanayna in la jijiiday noqotay ugu dambeyntii familkaygii waxay awood u yeesheen inay idamiintaan oo ay wadaan ayaan bari ku noqday alxamdulillah ilaa maantana aan ku joogan ku noolahay micnaha taas marka kale aan ku sii daray wuxuu yahay haddii Allah subxaanahu wa tacaala uu qoray inaan dhinto waa dhima laha haddana marka Allah ii qoran dhimanaya laakiin muhiimka wuxuu yahay si kastoo la cabsiyo si kastoo hay'adaha lacag bixiyaan si kastoo gaal iskugu tagto hadafka aniga aan leeyahay oo in Soomaaliya ay noqoto dawlad islaam ah aanan qori qaadan hal qori aanan qaadan hal qof aanan dhaawacin oo ku guuleysan hadii ay yiraahdo haddaan noolahay haddaan dhintana dad kale oo islaam oo farabadan jiro soo baxay taas walka ma qabo waxaan marka rabaa inaan idin sheego aniga contractiga aan Mareykan la gol ahayd inaan 10 sano inaan hadlin waajibi waxaan u jabiyay because of wadankayga dhibaatada haysata waa dooro karay naftayda iyo ilmahayga iyo reerahayga quruxda badan iyo gabdhaha quruxda badan qabo waa dooro karay laakiin waxaan ka doortay marka arka dhibaatada wadankayga uu ku sugan yahay xaaladda uu ku sugan yahay iyo gumaysiga nasaare si loo qolo wixiina aan aqaano mas'uuliyadda isaarna waxay tahay in aan u istaago shacabka Soomaaliyeed iyo wadankayga iyo diinteeda oo jeclahay oo aan diidoon xabsi ugu jiray almost 4 sano Mareykanka incommunicado oo laygu dilay oo laygu jirdilay maantay anoo banaanka jooga inaan ka aamuso wahminka xalawtiga mana sameeynayo waxaan leeyahay marka nimanka BBC do contractiga soo wariyaalka oo ninkan hal cambaare leeyahay wariyaal waay because wariyaalka waxa kale loo leeyahay macnaha in layga maro dhinacii warbaahintii oo haddii warbaahintii loo sheego leeyahay ninkan dad uu soo dilay wariyaal waliba soo dilay dad kale soo dilay hadii leeyahay waxa laga yaabaa in la yiraahdo waaw Soomaaliya 1919 waa la soo dilayay dhima laha waa dadka dhanaa Soomaaliya dhanaa dagaalamaysa in la yiraahdo laakiin hadii la wariyo dilay macnaha nimankii dadkii kale wari waxaan rabaa marka inaan shacabka Soomaaliya la wadaago waxaan ka codsanaa dhamaantiin inta ku jirtaay qof walba si shir gareeyo si message-kan uu gaaro dhamaan bulshada Soomaaliya because arrintaani waa arrin diini ah waa arrin loo baahan yahay in loo istaago haddii maanta anigu aan dhibaato soo gaarto ama because of arrintan la igu dilo ama dhibaato kale igu timaado de waxay noqonaysaa haddii la yiraahdo qof walba maalintiisa meeshiisa in loogu yimaado lagu helo haddaan laakiin isgarabsano haddaan isgarab istaagno haddii arrintan laga hadlo oo dadka islaamka ay ka hadlaan haddii waxay noqonaysaa markaas inaan xoog leenahay wadankana difaacno waxaan u reetal ku noqdaan u dagaalamaynaana waa difaac diinteena iyo wadankeena waxaan rabaa marka inaan ku soo gunaanado anigu waxaan ahay islamist qof u taagan ama aaminsan in diinta islaamka wax lagu dhaqo philosophy-gayga عقيدتي
dagaalkayga kaas waay si kastoo lay cabsiyana dib uga degi maayo anoo xabsi maraykan lagu dilaayo hameen kasta anoo hameen kasta lay garaacayo anigoo quraanyo laygu fadhiyay anoo duud cidiyaha laga geliyo masquul aan jiifanayay macnaha dhowr iyo 10 maalmood masquul aan jiifanayo bahalka intuu galay ilaa iyo lugaha jilbaha uu yimid waligay dib uga ma degin hadda maanta cabsi dib uga degayo marka nimanka programkan wado dhahay ninka hal cabsiyo wada waa inaan dhinto baan uga haraa arintaas wax kale oo iga reebi karaa ma jiraan iyo Allah subhanahu wa ta'ala qadartiisa oo kale ugu dhacdo waxaan marka shacabka Soomaaliyeed la wadaago waa idin jeclahay barnaamijka tala ku nool haddii maanta anu aan tago line-ka tala ku nool qofaa ku soo jira oo diyaar inuu position-ka soo galo marka hataa waxaa fiican inay iyagu laftirkooda ma fakerino isma dhihin war ninkaani makaligiisa mise dad la socdo waxaan rabaa marka inaan kaga tago arrintaas iyada ahi dhambaalka aniga aan wado ee Soomaaliyeed ee ah in la difaacdo you know diinteena iyo dalkeena iyo dadkeena waxa weeye waa arrin muqaddasa waana arrin aan marka kaarin idinkana saas aan ka rabaa Sufyaan Sheekh Axmed weeye waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nabad baan isku ognahay arrintaasna ha laga hadlo ha la difaaco dadka dacaayada suuqa wado Sufyaan saan weeye oo Mareykanna laga soo tarxiilo oo war Mareykan waxa u naqaan male annaga la faheena aan wala soo cararnay in la ku dilo 17 qof aan xabsi ugu galnay anagoo laba ka noqday yaryarmeen iyo aniga marka wax weyn aduu ku leeyahay ani wax weyn meelaha waxa wax weyn la diinta islaamka iyo dalkayga marka sidaasay inoo ahaanaysaa saasaan isku ognahay annagu ma gambanayno qadartu maalinta inoo timaadana hadda wassalaamu calaykum waxa weeyaan tii fiicnada aan u soconaa ilaahna waxaan ka rajaynaynaa ilaahna aan ka baryaaya arrintaana inay noqoto cibaado ilaahay inuu asiib siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh